wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa ka warbixiyay shir ay hoggaanka wasaaradda caafimaadku isugu yimaadeen oo ka qabsoomay xarunta dhexe ee wasaaraddaasi. Wasiirka horumarinta caafimaadka oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa si faahfaahsan uga hadlay qodobada diiradda lagu saaray shirkan, kuwaas oo isugu jira dardargelin qorshayn iyo fulin ku qotonta sida loo waajahayo arrimaha horyaal wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waxa kale oo laga wada hadlay sidii guud ahaan siyaasadda qaranka ee caafimaadka iyo qorshaha horumarinta waddanka Soomaaliland ee qaybtii labaad ama rogaalkii labaad iyo guud ahaan siyaasaddii xisbiga kulmiye uu ku kaameenka ku galay ololaha ku galay sidii loo fulin lahaa iyadoo la eegayo qorshihii oo aan maanta aad uga hadlay qorshihii lagu hirgelin lahaa iyo sidii loo hirgelin lahaa iyo sidii loo kala horeysiin lahaa muddaanta sidii u kala leeyihiin adeega caafimaad. Waxaa kaloo lagaga hadlay sidii shaqaalaha wasaaradda xarunta dhexe loo tirakoobi lahaa dhinaca shaqo soo gelidda iyo ka bixidda oo la doonayo in shaqaalihii lagu dabagalo oo lagu korbeero bishii masalan indhaaftay oo kale imse shaqaalaha waa kala bar bishii habsaamay saacadihii marka la isu geeyo maalin walba uu habsaamayay imse intiiba wada yimi imse saacadood buu qofka ugu yaray ama ugu badani uu maqnaa sidii wax looga qaban lahaa oo qofkii de maalin walba imanayay ee soddonkii cashaba dhamaystay iyo mid 15 qura shaqeeyo maalin walba saacadii kasii go'ayeen isku si loo dhaqmo maaha kii waajibkiisa gutan in loogu mahadnaqo lagu booriyo kii wax ka dhinaayna in ciqaabtiisa uu leeyahay la mariyo. Sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa uu ka hadlay dhinaca qorshaynta hawlaha wasaaradda ee sanadlayaasha ah iyo waxa ay ka maldhigteen. Kale qorshihii sanadka inaan dib u eegno anagoo ka duulayna siyaasadihii aan hore u soo sheegay oo aanu sidii ugu habboon looga dhili lahaa qodaxda iyo takarta oo wax aynu idagu isku tashano haddii xitaa hay'ad aynu weyno inaynu fulin karno oo laga dhilay qodxii oo dhan laga dhilay in dhaqso aynu soo saaro. waxaa laga hadlay hay'adaha caalamiga ee ilaa imika aan weli la saxeexan heshiis wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland in lagu booriyo in waqti loo qabto kama dambayna ugu dambeyn bisha 8 loo qabto inay ku soo gudbiyaan wixii ay nala qaban lahaayeen. haddii warqadda loo qoray laga waayo inaan ku tashanin wax inoo soo socda ay la mid yihiin inaan ahayn inay yihiin ciidan noo soo socon. waxa aad kaloo loo falanqeeyay sidii hay'adahaasi wax ku inala saxeexay wax ama kuwii aynu safgaradka wada galay in aynu ku khasabno wixii ay ballan qaadeen inay oofinayaan inay khasab sanduulo ku noqoto inay oofiyaan. haddii aanay oofinayna inaanay marka horeba noola imanin waxbaan idinla qabanayna. qaarkood baa laga yaabaa inay yidhaahdaan waxaasaan idinla qabanaynaa waxaa kale idinla qaban karmayno wixii waddanka dan u ah iyo muddaanta ay kala leeyihiin adeegu ayaynu kala horeysiinaynaa. cidna inoo yeedhin mayso oo odhan mayso waxaasaan idinla qabanaynaa hooya taama yeelayno. waxaanu ku tashanay in inaguna hadday suurtagashay isku tashanno qolada hay-adahana aynu u tusno dad soo jeeda oo aqoonteedii iyo garashadeedii iyo kartideedii bale inaynu waddanka caafimaadkiisa aynu ka soo bixi karno ee aanaynu arkin dad wax doonayo inuu gacanta hoos dhiganaya. wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa dhawaan isku shaandhayn ku sameysay agaasimayaasha waaxaha ee wasaaraddaasi waxaana shirarka noocan ahi ay qayb ka yihiin sidii wasaaraddu isula jaan qaadi lahayd.